kan waa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo sheegay intaas qofkii sameeya oo Facebook iyo TikTok wax ku soo qora ama Twitter oo liinta xabsiga uu ka cabi doono. mid Facebook wax ku qoray mid Twitter wax ku qoray sheerkayinta ka cabi qof Facebook wax ku soo qoray ama TikTok ka soo caytamayna Muqdisho waxba kama bedeli karo haddii caalam uu qaatay iyo haddii uu iska dhaafaba. bedelka Hargeysa ay soo dul qaadin karin wax Facebook lagu soo qoray ama Twitter lagu soo qoray ama TikTok qof ka soo caytamay. sidoo kale isku xirnaanta markii la yiraahdo Hargeysa bulshada haddii ay dhahaan waxaan waa diidnay warkooda uu shaqeynaa bedelka Muqdisho wax walba haddii ay sheegaan aan warkooda uusan shaqeyn. saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Hargeysa maxay ku kala fiican yihiin labada magaalo sida maamulka dhismooyinka magaalada wadooyinka iyo isku duubnida bulshada. waxaan ahay Mr. Klimatani markale soo dhawaada aan ku hormaro mid ugu horeyso magaalada Muqdisho iyo Hargeysa wadooyin markii la yiraahdo 100% waxa fiican Hargeysa. sidoo magaalada Hargeysa wadooyinkeedu waa ay furan yihiin badankoodana waa laamiyo oo karkashan ma ahan bedelka Muqdisho ay tahay wadooyinkeedii in badan ay xiran yihiin qaar ka soo hareen ay yihiin kuwa jajaban. Hargeysa kama dhacdo badanaa jam hal saac nus saac 15 daqiiqo lagu jiray bedelka Muqdisho ay ka dhacdo jam aad u tir badan. ujeedin war waxaan ku dhahay ex control ilaa wada ilaa seebiyaan waan ku dhahay war mar dambe hilibiyaan loo keenin haddii kale anaga saa dhibaatadana haysto meelaha ka baxayna male. Muqdisho waxay xal u laadahay ilaa iyo 10 sano in ka badan in ay xalliso ama ay xal u hesho jamkan sida loo kala xalin lahaa. Hargeysa waxay leedahay qalabka wadooyinka lagu kala hago baabuurta iyo mootooyinka iyo wax kasta oo gawaariyo wadooyinka kala maro. bedelka Muqdisho ma lahan qalabka wadooyinka lagu kala hago. bulshada ama bajaajta ka shaqeyso ama baabuurka wado Muqdisho waxay dib ku qabaan ama ay xal u laayihiin jamka iyadoo ay tahay caasimadda Soomaaliya. taas waxay ka dhigan tahay in 100% wadooyinka ay fiican tahay magaalada Hargeysa. aan u sii gudgalno dhismooyinka labada magaalo. dhismooyinka haddii aan ku hormarno magaalada Muqdisho ayaa 100% dhismo ka fiican Hargeysa. Hargeysa dhismo way leedahay laakiin ma gaari karto sida magaalada Muqdisho ay u dhisan tahay. Muqdisho waxay haysataa laamiyo aad u qurxoon laakiin waa meelaha qaar oo kaliya ma lahan wadooyin isku furan oo xilliga doonta aad mari kartid sabab jira awgood. meeshaan waxaa nooga soo baxday labada geesood wadooyinka markii la yiraahdo waxa fiican magaalada Hargeysa laakiin dhismo markii la yiraahdo waxa fiican magaalada Muqdisho laakiin wax wada la yiraahdo ma hayso Muqdisho. aan u gudgalno bulshada labada dhinac degan. bulshada Hargeysa degan iyo bulshada magaalada Muqdisho degan labaduba waa bulsho Soomaaliyeed. Hargeysa hadaan u gudgalno waa dad isku xiran isku duuban qofka ay rabaan in ay soo doortaan iyaga codkooda ku soo doorto ama iyaga keensado waxay rabaan ka sameyn karo xilligay rabaan tuuri karo xilligay rabaan soo celin karo. hase yeeshee magaalada Muqdisho gudoomiyaheeda ama ninka gudoomiyaha gobolka ka ah iyaga ma keenaan waa loo soo magacaabaa. meeshaas waxa ku fiican bulshada Hargeysa. sidoo kale isku xirnaanta markii la yiraahdo Hargeysa bulshada haddii ay dhahaan waxaan waa diidnay warkooda uu shaqeynaa bedelka Muqdisho wax walba haddii ay sheegaan aan warkooda uusan shaqeyn. maalin libad ay ahayd markii shirkadaha isgaarsiinta ay soo saareen internetka in ay $1 ka dhigaan way ka mudaharaadeen. markii ay ka mudaharaadeen internetkii waa la joojiyay. Muqdisho marka u fiirino bulshadeedii isku xirnaanshaheeda aad ayuu u liitaa. internetka $1 ayuu ahaan jiray waxa laga dhigay 80 senti wax ka hadlayna malahan. hadda waxay soo wadaan shirkadaha isgaarsiinta $1 ilaa iyo in ka badan. isku xirnaanta bulshada magaalada Muqdisho iyo kuwa Hargeysa 100% waxa fiican Hargeysa. sababtoo ah gudoomiyaha iyaga keensado qofkay rabaan way keeni karaan qofkay rabaan way diidi karaan. bedelka Muqdisho aysan qofna keeni karin qofna aysan eri karin.
boqolkiiba boqol dhanka waa looga fiican yahay. Somaliland ayaana ku fiican isku xirnaanta bulshada. haddii aan u gudagalno siyaasadda, muqdisho haddii la caayo iyo haddii la ammaano iyo haddii wax kasta laga sheego, cid ku xiraysa ama cid ku jujuubinaysa ma jirto. meesha doonta ayaad mari kartaa, xor ayaa tahay. qof Facebook wax ku soo qoray ama TikTok ka soo caytamayna muqdisho waxba kama bedeli karo haddii calan uu qaatay iyo haddii uu iska dhaafaba. bedelka Hargeysa aysan u dulqaadan karin wax Facebook lagu soo qoray ama Twitter lagu soo qoray ama TikTok qof ka soo caytamay. kan waa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo sheegay intaas qofkii sameeya oo Facebook iyo TikTok wax ku soo qora ama Twitter uu liinta xabsiga uu ka cabi doono. mid Facebook wax ku qoray, mid Twitter wax ku qoray, mid wargeys wax ku qoray, mid riyooday iyo mid aan weli loo sheegin wixii lagu maayada intuba sheelkay inta ka cabay. muqdisho boqolkiiba boqol waxay kaga fiican tahay Hargeysa in aan lagu dhibaateynayn oo siyaasadda si kasta Somaliland dara u tahay inaan lagu xirayn. waxa doontana aad sheegi karto, meesha doontana aad mari karto. sidoo kale Hargeysa dhibaatooyinka ay leedahay waxa kamid ah ama dadka maamul ahaan markii loo fiiriyo shacabka ay ka cawanayaan dhalinyaro ka tirsan magaalada Muqdisho haddii ay baxaan oo Hargeysa ay tagaan mar walba xabsiga ayaa loo taxabaa. bedelka Hargeysa dhalinyarada ka imaanaysa Muqdisho markay imaadaan si fiican loo soo dhaweeyo oo loo qurxiyo. mar haddii maamulkoodii madaxweynaha uu leeyahay qof kastoo Facebook wax ku soo qoro annaga uma dulqaadan karno. maalin ay ahayd markii maamada qaran ay dhahaan xabsiga loo taxaway markii ay shaashada soo saartay sticker calanka Galmudug ah. dulqaadka ayaa aad u yar markii loo fiiriyo maamulka Somaliland ama magaalada Hargeysa. isdhexgalka bulshada aad ayuu ugu yar yahay, kontaroolka social media-hana aad ayuu u adag yahay. taas waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol markii la fiiriyo isdhexgalka bulshada iyo in aan waxba la isku qaban uqdad iyo wax tabasho ay sameeyay olin. boqolkiiba boqol waxa ku fiican magaalada Muqdisho. dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa waxay aaminsan yihiin in ay Muqdisho dadka ay dimiso ayadana ay dadka soo saarto. waana sida saxda waa sida oo ah Muqdisho ayaa ah aabaha social media. tan ma ahan cid gooniya in lagu weerarayo ama cid gooniya lagu dhagaateen. waa aragtida adigana waad ka soo dhiiban kartaa haddii aad iga daawanayso Facebook iyo YouTube iyo TikTok. xor ayaa u tahay. video oo dhameystiran waxaad ka heli kartaa barta YouTube-ka ee Mr. Kilmatani. waxaan ahay Mr. Kilmatani. fadlan haddii aad ugu subtahay subscribe iyo saar siina share garay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.